soo dhawaada saaxiibayaal, waxaan rajeynayaa inaad caafimaad qabtaan. Kahor intaan muuqaalkeena bilaabin, haddii aad ku cusub tahay channelkeena subscribe saar, shaartana ha ilaawin, laagtana waxay ii tahay dhiirigelin. Aad ayaad u mahadsantihiin dhammaantiin. Filimkeena wuxuu ka bilaamayaa gabar lagu magacaabo Aasha. Hordhac ahaan haddii aan idinku sheego, wiilkan lagu magacaabo John aabihiis waa bilyaneer, kaasoo leh shirkadda ay ka shaqayn doonto Aisha. Si ku meel gaar ayaana loogu wareejiyey John shaqada. Haatanna maamadan waxaa lagu magacaabaa Ryanti, waana John hooyadiis. Aasha waxay soo aadaysaa shaqadeeda, waxayna gacan yaro u tahay John, kaas oo mas'uul ka ah shirkadda aabihiisa. Aasha ayaa soo galaysa xafiiska John, waxayna leedahay maxaan kuu qabtaa. John ayaa si kibir ka jirto ugu jawaabayo, wuxuuna leeyahay araggaaga iga leexi ama iga qari. Aasha shaqadan dhib ayay ku qabtaa, laakiin mushaarkeeda ayay fiirsanaysaa maadaama ay ka soo jeedo qoys sabool ah oo aan waxba haysan. Mar kale ayuu u wacayaa, wuxuuna u sheegayaa inay qolkiisa hagaajiso. Haatanna waxaa la gaarayaa xilligii ay qolkiisa hagaajin lahayd, laakiin iyada waa ay ka soo daahaysaa. John ayaa imaanaya qolkiisa, wuxuuna arkayaa qolkii oo isku dhex yaacsan. wuuna wacayaa, wuxuuna leeyahay shaqadaada maad qabsatid. Waxayna ku jawaabaysaa hadda ayaan bilaabayaa, waa uuna ka diidayaa isaga inay shaqada hadda bilowdo maadaama ay soo daahday. wuuna soo burinayaa Aasha oo xanaaqsan ayaa qolkeeda isaga soo tegaysa, waa uuna soo dabakacayaa isaga. intaasi kadibna wuxuu ugu hanjabayaa inuu shaqada ka ceerin doono haddii ay u qaban weyso shaqada sida loogu idmay. waxayna ku jawaabaysaa adiga ayaa diiday inaan qolka hadda soo hagaajiyo. Si kibir ku jirto ayuu ugu jawaabayaa, wuxuuna leeyahay haddii aad shaqadaada qabsan weyso inaan shaqada kaan buri doono ayaan ku ballan qaadayaa. isagana waa uu ka soo tegayaa, wiishka ayuuna soo raacayaa. maalintii xigtana John ayaa ku khudbeynayo masraxa, wuxuuna ka hadlayaa arrin ku saabsan shirkadda aabihiis. dhowr daqiiqo kadib Aasha waxay la soo daahaysaa ubaxa lagu soo dhaweeyo dadka madaxda ah. marka ay keento ubaxay, si kibir ku jirta ayuu ugu jawaabayaa, wuxuuna leeyahay maalmahan shaqada sida aad u waddo aniga waan ka soo horjeedaa oo kama helin middaas. weliba dadka hortooda ayuu ku canaantay ereyadaasna uu ku dhahay. maalintii xigtay wuxuu ku balamiyey xafiiskiisa, wuxuuna weydiiyey falaash kombiyuutarkiisa saarnaa. wuxuuna dhahay raadi falaashkaas oo ka maqan xafiiskayga. wuxuuna dhahay shaqadaada qabso. intaas kadibna way isaga soo tagtay meesha. subaxii xigtay John wuxuu ahaa safar, wuxuu ku amray Aasha inay boorsadiisa u soo xirxirto, ayna u qaaday ilaa ay garoonka diyaaradaha uu ka tagaayo. Aasha waxay dareemaysaa cadaadis taas oo ku aadan shaqadan foosha xun iyo maamulaha shirkadda qaabka qaldan ee uu la dhaqmaayo iyada. intaasi kadib John safarka ayuu ka soo baaqday, gurigiisa ayuuna ku soo laabtay. John ayaa soo fadhiistay miiska lagu cunteeyo. Aasha ayuu u wacay, wuxuuna u sheegay in la gaaray xilligii qadada. waxayna weydiisay cuntada uu jecel yahay, wuxuuna ku jawaabay waan necbahay su'aalahaas oo kale. intaas kadib wuxuu u sheegay inay u keento cuntada uu cuni jiray. maalintii xigtay wuxuu soo aaday meel lagu qabanayo xaflad. Aasha ayuuna dhahay isoo raac. haatanna gaarigiis marka uu u soo dhawaaday, wuxuuna u sheegay inay gaarigiisa raaci karin, ay raacdana taxi, isagana wuxuu raacay gaarigiisa. intaasi kadib labadooda waxay qaateen location qaldan, waxayna wada imaadeen goob cidla ah. habeen madow markii la gaaray, John ayaa u dirsaday Aasha hotel agagaarka ay joogeen ka dhawaa, iyadoo ayuuna ku dhahay cabsi miyaad dareemaysaa. iyadana waxay ku jawaabtay maya, ee adiga ma cabsanaysaa. isagana wuxuu ku jawaabay haa waan cabsanayaa, weligii ma arkin goob noocan oo kale ah. intaas kadib John wuxuu arkay naag duq ah oo u eg ruuxaan, wuuna suuxay. daqiiqada kadib John ayaa indhaha kala qaaday oo meel la yaab leh isku arkay. wuxuuna arkay oday midi afaysanayo. John ayaa damcay inuu ka cararo, balse albaabkii meesha uu ku yaalay ayuu waayey, laakiin daaqadda ayuu ka soo booday. odaygii ma ahayn qof dilaa ah. odaygii John ayuu u imaaday, wuxuuna dhahay nin noocee ayaa tahay, xaaskaaga ayaa halkan ku keentay. Aasha odaygii ayay u sheegtay inay labadooda wax xiriir ah ka dhexaynin. isla goobtii waxaa imaaday laba qof oo waayeelo ah. Aasha ayaa dareentay baahi daran. labadan waayeel waxay weydiisteen inay cunno u keenaan iyo waxyaabo ay cabaan. cunnada marka la keenay, John ayaa si kibir ku jirto ku dhahay waxaan cunaya ma lahan, maadaama isagu uu ka soo jeedo qoys bilyaneer ah. cuntada loo keenana ayuuna yasay, wuxuuna ku tilmaamay cuntada inay tahay mid u qalmin isaga. dhowr daqiiqo kadib John ayaa gaajooday, wuxuuna ogaaday cuntada hortaala wax u dhaamay inaysan jirin, maadaama telefoon xitaa iyo wax lacag uu jeebkiisa ku jirin. wuxuuna cunay cunnadii. halkaas ayayna labadooda waqti ku qaateen. subaxii markii la gaaray, Aasha waxay rabtay John go' hoostiisa yaalay. marka ay soo jiido go'ii si lama filaan ah ayay ugu dhacday John laabtiisa. isaga ma uusan ka warqabin waxa dhacaya, waa uu hurdayay. marka uu soo kacay ayuuna dhahay waxa iga kor kacay maxay ahaayeen. intaas kadib labadooda bannaanka ayay soo aadeen. John ayaa dhahay waa inaad baaskiilkan soo raacdaa. wayna iskhilaafeen, laakiin ugu dambeyn waxay ku heshiiyeen inay wada raacaan baaskiilka. waxayna ku soo laabteen xaafadooda. isagana marka uu imaaday xafiiskiisa, John aabihiis ayaa weydiiyey halka ay ku maqnaayeen labadooda. isagoo ka qarinayo wuxuu dhahay waxaan ku maqnaa arrimo ganacsi.
habeenkii xigtay John wuxuu soo aaday dhanka Aisha wuxuuna u soo gaday hadiyad maadaama uu dareen u qaaday isaga maalmihii duurka ay ku maqnaayeen. waxyar kadib waxa uu arkay Aisha oo wadada ku socota wuuna wacay isla markaas wuxuu arkay qof iyada laabta gelinayso isla markiiba wuxuu dareemay qalbi jab aad u daran. intaas kadib iyada ayuuna u tagay wuxuuna dhahay waxaan u baahanahay inaan kula hadlo ee ma ii jawaabaysaa ha ayay ku dhacday. John waxa uu damacsanaa inuu weydiiyo Aisha wiilka laabta gelinayay qofka uu yahay laakiin wuu ka xishooday wuxuuna ku bedelay inuu bari shaqo gali doono isaga ee howlna u qaban doonto. markaas ayay ooyday. intaas kadibna waxay ku dhacday waxaan rabaa inaan halkan ku kala tagno shaqadana aan isaga tago. John ayaa hadalkaas aad ugu naxay maadaama uu aad u jeclaa gabadhan wuxuuna dhahay hadalkaas maxaad u dhahaysaa ma ogtahay inta daqiiqadood oo aan halkan kugu sugaayay sidee u noqon kartaa qof danaysta ah. Aisha ayaa ku jawaabtay ma ilowday dhaqankii foosha xumaa ee aad igula dhaqmi jirtay waxayna ku dhahday adigaa danaysta ah ee shaqadaada waan kaaga tegey. kadibna goobta ayay isaga tagtay. intaas kadib John wuxuu soo raacay gaarigiisa isagoo murugaysan maadaama uu isbeddel weyn ka muuqday isaga wuxuuna gaariga ku dhex arkay hadiyaddii uu u keenay Aisha. intuu qabtay hadiyadda ayuuna daaqada ka tuuray isagoo ka xanaaqsanaa hadallada ay ku dhahday Aisha. isla markiiba waxaa u imaaday qolada taraafikada waxayna dhaheen qashinka aad wadada dhigtay ka qaad waxayna ku dhaheen hadiyadda masaaxiibtaada ayaad u keentay wuxuuna ku jawaabay maya. la socota xanaheena qaybtiisa labaad oo aan dhawaan soo gelin doonno. waana ku mahadsantihiin qaabka wacan oo aad inoo daawanaysaan waqti walba waan idinkaga mahadcelinayaa saaxiibayaal.